abwaanka geeriyooday maxamuud cabdilaahi ciise sangub waxaan ku horeyni in alto goormaad isbarateen oo munaasabadeed isku barateen abwaanka allah u naxariiste. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون أبوانك إلهي نحرستي جناك ورابيو مرتي اللي جعلي إلهي أكدو أبو محمود عبد الله عيسى السنقب وحان اسبرني كون يا سغال بقولين لبي سديتنكي وحان نسخو برني ماشي لرئيس تادي مقص أنا فانفارة ويبقى فنان هاي هل كاسا نسخو برني كون يا سغال بقولين لبي سديتنكي بشي أكتوبر ويتا kolka bal taariikh nololeedkiisa intaad uga soo joogtay intaad ka garanayso nolosha. wallaahi horta allah yarxamu raxiim taariikh nololeedkiisii nolosheeda inta ugu badnayd hargeysan kusoo wada qaadanay wuxuu ahaa agaasimihii fanka ee gobolada waqooyi buu ahaa agaasimaha tiyaatarkana wuu ahaa 8 sanadood dagaalkii wuu isu kaaya dhacay waxaan kala tagnay 89 bishii Oktoobar ayaan kala tagnay anuu Ethiopia soo galay asna xamar u aaday ka bacdi waxa isu kaaya horeysay shirki cartaad haddana inta halka Djibouti jamhuuriyadda Djibouti halkii baan ka wada jaan qaadnay ka bacdina wuxuu soo degay 2006 hotel wuxuu ku soo degay Melelik isagiya Saadiya Allah yarxamo iyo Cabdinuur markaasna joogay ka bacdina waa kii madaxweynaha soo dhaweeyay ka bacdi waxaan wada shaqtagnay kooxda deegaan oo caws oo xaaji oo hogaaminay dabadna barnaamijyo badan baan wada qabanay laakiin haddaan dib kugu noqdo horta allah yarxamo raximo alifka abwaanku wuxuu ahaa nin yani xagga qalbigiisu nadiif yahay muhanniya waxaan ku tilmaamo karnay oo yani macallin xitaa heer wuxuu ii gaaray saxofoonka sida loo tumay inuu 10 iga bixiyo laxamada wuu sameyn jiray heesaana wuu soo maray dhaqankana dee waa aabaheeda iska daa oo markiisii hore wuxuu agaasimaha dhaqanka ee tiyaatarka Muqdisho ayuu ahaa dabadeedna 1983 Hargeysa loo soo bedelay agaasimaha tiyaatarka Hargeysa laga dhigay horta Allah ya qabriga Allah horta sheeko waan ku maqlay agaasimayaasha badiya de waxa laga caban jiray nama dhex yimaadiin oo ma aragno oo ma shaqeeyaan isaga wax laga cawdalay nagama dhexba waa qisadii ugu dareyd macaad miigan iyo group ba gudi ah Allah yarxamu raxiim waxa la yiri ninkan agaasimaha noo ah shaqadeeda kama dhex baxo mar walbuna dhex jooga ayaa lagu dacwiyay wasiirkii rafaafada wuxuu yiri waxaan maqli jiray agaasimo ma aragno nooma yimaado ayaa laga dacwoonayay mid laga dacwoonay mar walbuna dhex jooga oo shaqo ka maxaan ku ganaaxaa buu yiri marka Allah yarxamu raxiim wuxuu ahaa nin macaan nin sakhiya nin baariya nin halka uu ka joogo aanay dhaxani ka soo gelin gaajana warkeeda maba agtiisa kumaad gaajoonayn wallahi ilaahay qabriga waliba la yiri dadka fanaaniin badan buu qoray oo maalin kaliya wuxuu qoray 100 qof haddaan la ii qorin buu shaqada waan ka tagay waana loo yeelay waxa kamid ah fanaaniinta uu soo saaray Cabdulqaadir Jubba kamid ah Xeebo baa kamid ah Barrow baa kamid ah dad badan oo dhalinyaro badan buu soo saaray gabdha jiray isagu wax soo saar buu ahaa production oo macnaha abuura fanka ayuu ahaa taasi waxa dheereyd waliba isagu waa qof shaqadiisii kabaabul abo habeen iyo maalin wuxuu waxa dhici jirtay fanaanku hadduu xitaa meereysto intuu ganaaxo ayuu riwaayad u kaxaysan jiray reerka intuu u weydaarto ama qadad u diro ayuu biilka 3 bilood riwaayad lagu maqan yahay intuu soo siiyo ayuu ornay fuul baabuur hadduu ganaaxay qofkii reerkina biilkoodiiba u reebay qofkiina uu kaxaystay shaqadii uu fulnay macna waxyaabaha hadda aan ku sameeyay ma garanayo ilaahay qabriga ha u nuuri waxaan aad tacsi ugu dirayaa labadii saxaas Aamina Sheekh Ahmed Aamina Qalib iyo Khadija Aw Daahir iyo caruurtiisa 25 caruur buu dhalay intay si dhaleen wax la yiri intaasina way ka sii badan tahay aad baan tacsi ma sha Allah waa beerdana waxa kaloon aad aan tacsi ugu diray fanaaniinta Soomaaliyeed waxa inta baahda afka Soomaaliyeed ku hadashay oo dhan ilaahay samir iyo iimaan ha naga siiyaan leh dawladeena Djibouti fiican bay soo dhaweysay xitaa aqalkiisa ana haya mushaaridiisa ana dira amaanad inta la eeg wiigu aaminay oo xaaskiisa u dira
marka ilaahay naxariistii jannaha naga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun anuu intaasaan hadda kaga baxay haddaba inta aanan u wareegin cabdinuur alaale iyo cawsoonka waraysigaas aan sii wadayno iyo guud ahaanba inagoo waraysi sii wadayna bal imika waxaan la soconaa waxoogaa mar aan la kulannay abwaanka iyo barnaamijkii tixmaal saqla orodka geediga waddada siga badaleyda sawaxanka iyo qaylada naflahan sooska dami waaye saabli'ida haamaha la raray sara u kaynaanka sagaaloodka naafdhaladka tegey saxalka guuraaya sidiqabaxda waayaha sirgaxan sayma lagu reebka sideedlahan sagaalaha hadhiin seemiga u ridaya raanidan sabooshay ee lixluhu samansabdhaynaayo baashahan sukaha laga degay iyo yaga sara jooga afarahan sinsaarada la helay toban la soo jeeda qaflad laba sadle ah kii rabeesoodhka laga taagay siday noqon iminka haddaba barnaamijkii ayaan sii wadaynaa waxaan usoo wareegaynaa cabdinuur allaale bal waxaan jecelahay cabdinuur adiguna intaad uga joogtay abwaanka allahu naxariistay geeriyooday sangub bal noga inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun marka hore waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii gaar ahaan labadii xaasul ahaa aamina iyo khadiija iyo ubadkiisa iyo dhammaan soomaali weyn meel kastoo ay joogto ayaan ka taxsiidinayaa ilaahay naxariis jannaa ka waraabiya marka hore aabbo qaran buu ahaa aabbo fan oo dhan waxaan odhan karaa aabbo ahaa markaan taariikhtiisa dib u noqday annaga barashada iyada waxaa nooga horreysay 76 calan maynaan qaadan bahay 30 fanaan baan kaga tegnay halkan oo allah u naxariistay ismaaciil cali nadiray oo xamar noo diray wasiirkeenu markaa sheeko iyagu isla ogaayeen baahanoo Ethiopia arrimo yaroo ka dhex dhacay jibo dadka ayuu diidanaa in la qaado fanaaniin la geeyo Ethiopia dabeedna wuxuu damcay relation la lahaa Soomaaliya xaggana aanu diray buu maxaaba Ethiopia loogu diray fanaaniin dabeedna 15 Soomaaliya 15 cafaran ku ahayn 76 marka dawladda naga mas'uul ahayd boormay ka bilaabmaysay ilaa boolaha waa halka saddex xad isaga yimaadaan 27 bay ma dhigantay ruwaadaasi waxaa markaana lagu soo daray oo dawladdu ku nagu soo dartay in sangub oo markaa aabanaga ahaa la naxariiste oo kuwina lagu soo daray anagaba wada maamula Faadma Cali Nakruuma Maryan Mursal Mandeeq iyo Saynab Ciga yaa nina la naxariiste oo dhintay goobelada oo baatriga tumay intaasana aweys marka ruwaada habeen walba way dhigmayso 27 bay dhigantay ruwaada magaceedu wuxuu ahaa halgankii ummadda iyo hog isticmaar qaybta ugu sarreyso ka metelay gumaysigii dalka haystay ayuu isagu metelay ninkii abaanka uga ahaa Djibouti habeen walbana nabar baa ku dhici jiray waayo isagu ma joogo ilaahay uma abuurin inuu masxuun joogo xamaasad baa geli jirta markuu waxa uu metelayo uu ekaa uu dhaadhici jiro dadku dhaadhacay dad qiiraysan markaa Soomaaliduna waqti la qiiraysnaa bay ahayd hadallada oo ku hadlayeen ay qaadan kari waanay qabtaan oo kabla dhacaan xoroobi maysa Djibouti aniga xanibay xoroobi maysa Djibouti xabad baan ku idlayn xoroobi gabacankaas wada moogtay habeen aanu nabar ku dhacayn ma jiro marka horta waxaan dadweynaha u sheegaya inuu halgan xoog la Djibouti u soo maray oo halganka Djibouti ka qayb galay ayaan madaxaan u tusayaa unan meel la ku koobnayn sangub kolbaalka uu joogo ahaa ilaahay naxariisna ka waraabiyo meesha uu tago isaga lahaa lagama lahayn niyad buuna ugu degayay niyad buuna wax ugu qabaday halka 76 ruwaadi markaan soo dhameynay annaga gaar ahaan aniga fanaaniinta Djibouti ma ahay ummadda fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan aabbo ahaa markastoo ka baxno 7 jeer baan ka baxno gurigiisuna ku degayn kolka Farid taa waxaan ka hadlayaa xornimada Djibouti fadka saar Djibouti ay sagaal haysta sagaal marka xitaa ruwa halkan markii aan xamar aan tagno Hargeysa ama xamar aan tagno gurigiisu maan tagayn meel kale ku agaagayn ma jirto
isagun baa markaa dowladda gaarsiin jiray oo fanaantiiba ay martay oo odhan jiray marka waxaad moodaysay inuu ilaahay u abuuray isaga inuu ummadun wax tuso waxna soo saaro sugaantii baad ka haysaa sugaamihiisa dee kolkaan halkan ka hadlaba dee freeson isagaa leh lixinka isagaa leh midhaha isagaa leh altiya baa tumeeyey daawud iyo siidi caliwanke anigu waan heesiyunay laakiin lixinka iyo midhahaba isagaa laha daweeye isagaa leh daweeye isagaa leh daweeye isagaa leh waxaa kaloo ku sheegaya anigu weliba si gaara anigu xidhnaa aabbahaygii runtii buu ahaa ilaah naxariisana ka waraabiyo sheekooyinka waan wareysan jiray anigu 48 markii aan ugu tagnay Hargeysa Maxamed sheegayay gurigiisaan fadhinay aniga iyo Nimco Jaamac iyo Aamina Faarax iyo ugu tagnay intaa yaraan fadhiday nin qayilay ma hayn isagu socon jiray oo wax ku yar baasaa shaxda marka intuuna shaxda tagi man dakeer faydaysan jiro marka waxa intii ruwada lahaa iyo suugaantiisa iyo ban yar wareysan jiray waxa weey horta ninka ku ruwada badnaa buu Soomaali markaan ka hadlo xagga masraxeed labadan markaad sheegteen ahayd xuriyo iyo ganacsiga maadis waxa soo raacay qabriga xuud baa liqay jacayl qabriga jacaylka waliba waxa uu iga sheekeeyay oo gaar iga sheekeeyay markuu xuud baa liqay jacaylkiisa oo sameeyay abwaanintii waaweynada marka rugta waa bariyo de guddi gooniyay lahayn oo qaybta wax soo saarka qaybta maaliyadda fanaanti laftigeedu tiyaatarka mid baan ku soo dhaafay ma kasto oo tagna anagu Soomaaliya mishaarkan la qaadanayna waa bari heerka isaga mariyay inaan mishaarka waa bari la qaadano inta aan joogno denin mishaar qaadanaya haddaan markii hore bil ku tala galay mishaar baan qaadanaya 6 bilood baan iska soo fadhiyaya ilaa mishaar baan qaatay waa bari baan ka mid tahay dabeed waxaan wuxuu ruwaadaha yaa waxa lagu yidhi san guba waa dilin jacaylka yaa lagu yidhi abwaaninta baa ku codsan sheekada dhamaan sababtoo ah haddii aad maanta disho berri kama haysi karti jacayl u dhamaada sheekadiisa rabbi jacayl waa soo dhamaystay dib iga maqlimaysiin way jacayl intuu iga filan waan istaabi kolka Djibouti maahine xitaa halganka in Africa oo dhan Africa hurdo aduu aaway maxay yuudu waa boqole maxay baa aduu markaa waxa la yidhi kamaysi kartid sharcigii waxa qabtay markaa ahaa jacayl kamaysi kartid waa ruwaadii xuud baa liqay jacaylin baa xuud baa liqay wuxuu ku xisiyay xuskii jacaylka waaban xusayna bursan guradiisa way wuxuu ku xisiyay in qabrigii waa la siyaarinaya hadda oo qabrigii jacaylka inta markuu soo waday iskuma qado oo intaan anigu aan xafiday anoo 2 xafidaya aldaya baa ku jiray wadana aldayo barrow iyo ayaa aniga ruwaadii xafiday leeyahay Cabdinuur Djibouti baa laga rabaa ruwaadii 3 bas faanta lagu cilniyaa dabeedna waa soo dhafay dib baan soo noqday ruwaadii waxa materiaalkaygii nin la yiraahdo Ahmed Maxamed ruwaadii busi baa xafiday Allah ya taala waxa ku jirta isku maqado waa 3 wiil oo gabadh jeclaanay mid adeerkeed baa bixiyay oo laga tago kuriyay midna aabeed baa baadiye ku siiyay midna iyada jeclay isku maqado anigu wali sidiban soo dhawo kuleeyay 3 wiil buu weysay iyo gabadh kolba mid buu jawaabaysa Maxamed Jaamac inda jacayl iyo barrow iyo xeebo iyo barrow maanta way noolyihiin xalayna way ka hadlayeen telefishanka si fiicanna way ka yeelan tacsida way ka oo waa ragiimka waa beri joogay dee maanta dhalinyartiisa kacday waa beri qabsatay bay ahayn barrow iyo xeebo iyo cabdi dhuux iyo dhammaan dadkii intii la noolay marka ninka ugu ruwaada badan buu noqday waxaanad moodaa lama yidhaaho hebel diin buu u baxayoo faafinaya furuuj diin buu faafinaya oo dad bilaa diin u tagay diintu geenaya waxa bad moodaysa in fankan odagii fanaan la lahaa inuu isaga
odayga tan la yidhi baa inuu isaga aha habeen baan wax garanaya maalmihii 28 Hargeysa anagooda joogna markaan iyo nimca tagnay ayaa waxaa dagaalo yar baa ka socdo dee waqti la iskala dagaalo sokeeyo oo dee dawladii iyo dadkii ayay hees ku dultiriyay marka waxa weeye dadkii soo isliyay dee iyo dawladii labadiiba waa isagii tiyaatarkii Hargeysa waa isagii kugu dhimay oo ka dhimay kii dhintaba waa ani iga dheregtayey haduye away dhalintiin yani kii dhintaba de waa aniga iidii baan ku idhi may buudi khatra daahiro garab joogtay buu dhiibay khatra dhabbay ooyse masraxay ku dhacday markaas ka dhamaysa waxbaa ku soo degayey ma ahayn samayn ma odhan karo waxbuu samaynayaan kusanku يعني تاريخي مركان دب ugu noqdo 76 waxa ka tagay delegation ba ka tagay Nigeria 170 baa 150 dawladood baa isku yimid marka isagu wuxuu haystaa folklore dance ka Soomaaliya ayuu horjooga u ahaa qof baa ka tagay waqooyi ciyaartay taqaanaa buu leeyahay sayri قديجة محمود سيلعي بلغ قري هلغو قرو لكن وإني انتا جوكتي دقنك أمك ولا سقضة وإني برتا سيلعي دي ونكا لا صحافون كل شوى إنو سيلعي دا عيارة أو يالي لي يوقفك ولا لقرون ما هي بروي تدك قف والبك وحيو يقانين تلغو قرا للي بر إساقا كان الشرعيقا بلد يقول إنو كوي كوسو قادي لحية تطاعتنك 150 dawladood isku yimid oo dhaqana soo noqodkii habeenkii madaxweynuhu casuumay waa kii accident ka baawarku galay ay ku dhinteen Allah naxariistay Cabdillah Qarshininkiisa iyo Maxamed Ciise ninkii hogaamiyay haystay tiyaatarka Maxamed Ciise oo qamaariya tiyaatarka wixii 7 qof baa kaga dhimatay Abgaalo Saciid wilwilaha denik waa wilwilihii waa rag dad 7 ku dhintay marka kooxda isaga watay calankeena markaynu taagnay 145 baan u dawaab ciidamada iyo fanaantii waa bariyo la isku soo diray oo la socday dadka saar Djibouti markay lahayn heesa canfaray ku heesiyeen magoniyo markaan halkan arxibo sida keeseen 140 baan la Allah naxariis Ali Gaabal la socdo ku jiray sangubde ninkii watay baa markaan marka dadka oo soo saaray bil metal oo folklore iyaga oo u gaara yiri uma qalantiin xaqan soo gala Seynab iga kamida inankii leesay kinsi xaajadan baa kamida qofku markuu folklore ka dhaafo ayuu oranaya wuxuu ku fiican yahay inuu masraxi joogsado isaga soo tabinay oo masraxi keenay marka macallin abwaan ma hayni 100 amuurood baa ku ladna waayo qofkani halkan faa'iido ku leeyahay folklore-kan badan ku dhex jira faa'iido ma yeelan waad arkood Seynab iga codkeeda waad aragtay salaad darbi waad aragtay waxa soo dhan soo saaray oo ka soo dhex saaray folklore dance marka waxaan aad iyo aad maanta uga taxsiinaynayaa madaxweynaheena marwada koobaad oo waajibkii ay lahaayeen ka maray aad iyo aad guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed weliba markuu halkan noogu yimid iyadoo baahi xun jirto in madaxweynaha iyagu ku dhawaaqay ilaa inta dalkoodu hagaagayo hooygooda labaad waa kan